بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسر دوالة برنامج كيني دبك هذا الغيبة وحن كجهد للدونا دينا السومالي لان يدور شدي كذا عضي أيه إنه كذا بتجي دونا سيدا الله سعطان با واحد سومالي لان كذا عيكوب يصدق كبشي إنه كسر قدومنا يدور شد دوينه أو لو دورنا يجرها وكيل لذا يجرها الديجان كحكومة السومالي لان دور شد عسيو أي شعب كقعدين لح قبل وحا مدة أنت مدة هيدا أما نراه مدة هالويق اللي تريني أما الوجود الشري ترين تعضد كل ديبتي قبل الله يدقموين ككل دوون دجاجنا ده سومالي لا وحا له لجوه الرئي قلها الدجاج كأول تريه دمان توصل حديث حسبية كتر تمايين نتيجوين كالهلان سيدو كله وحا التريه قلها وكيل لذا سومالي لان ويدنا يكوشرين ضد ماركتي إيش اللوجو هاي guud ahaanba waa la soo gabagabeeyay haddaba tirintii codadka natiijadiina horey ayaa loogu dhawaaqay maalin ka hor waxaan eegi doonaa arrimahaasi ku gadaanaa doorashada iyo sidoo kale waxyaabaha taariikhda ku dhex suntan sidoo kale waxaynu eegi doonaa gobolka Sanaag bari ama gobolka Sanaag aan idhaahde sida aad la socotaanba Soomaalidu meel kastoo ay joogto inta badan beelaha ayay wax ku qaybsataa isla markaasina kuraasta baarlamaanka iyo xilalka kala duwan ee dawladda ayay ku qaybsadaan waxaa jira haddaba beelo iyagu dega gobolka Sanaag oo la sheegay in ay saami ku lahaayeen Somaliland kuwaasi oo gabi ahaanba ka maqan iyaguna saaxada kuraasta baarlamaanka iyo golaha deegaanka arrintaasi ayaynu iyadana eegi doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle Jaamac Gallad Jaamac ku soo dhaweeyay marka hore kadib bal waxaad hadda ka warantaa Somaliland sida aynu la wada socono dadkuna la wada socdaan doorashadii waa la soo gabagabeeyay natiijadii waa lagu dhawaaqay asxaabtii waa la wada maaragtay way kala heleen qaabkee loo kala helay بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهان بشعبك الصوماليات ملك استوى جوجان با وحن الله السلام الله عليكم نور ده وقابك لو كلا هلي ومد هذا ماركتايتو كل إسقاط أو لباهية أو محن كل هذا يتو برشلو هذا أنت هذا بدنا كذا ورقبتها لما دورشوا أو إسسارن بيهاين لما دورشوا إسسارن مد وحكو جولستي حسب الحاكم كل مية ودورشوا قلها مارتي ديجان حسب جالس كو جولستي ها كو عدد بدنا أو محن كل هذا يتو لديه كرايسة كوري مدنا ودورشوا قلها وكيل هذا أو حسب جا ودني بهال ديري جله محن كل هذا يتو إسنا لديه كراو كو جولستي marka aad fiiriso sida ay wax u dhaceen iyo geedi socodkii doorashada iyo guud ahaanba hanaanka maaragtay to doorashada Somaliland min bilow ilaa iyo dhamaad wuxuu ahaa mid maaragtay to runtii aad maaragtay transparency ah oo cad oo sida ay wax u socdaan qof waliba uu arkayo oo aanay jirin maxaan ku idhaahdaa to bob iyo wax isdaba marin iyo maaragtay waxyaabaha doorashooyinka caanka ku ahaa way jiri karaan oo dhaliilo way jiraan oo meelo badan oo hadaba laga qayliyo iyo dad qayliyaya intaba way jiraan oo dhawaaqaya gaar ahaan aan maaragtay xagga gobolka awdal oo kale waa ka jirta qayladhaantu laakiin de waa qof iyo labo iyo weeyaan oo ma aha wax si badan oo iyaga naftirkooduna aan cadeymo iyo maaragtay to waxyaabo maaragtay loo qaateena aan maaragtay to iyaga aan soo bandhigin marka dhaliisha marka la fiiriyo halka maaragtay to dhinaca transparency ama maaragtay sida ay wax u dhacayeen caddaanteeda iyo qarsoodi la'aanta iyo hufnaanta marka la fiiriyo waxa lagu tilmaami karaa 90% halka dhaliilaha ama eedahana maaragtay ay noqon karaan 10% wax ka yar marka si guud qodobo taariikhi ah oo iyagana maaragtay iska macquul ah oo maaragtay to waxaan hore u soo dhici jirin ahna way jiraan oo iyagana maaragtay runtii wax ka soo maaragtay wax ka bedel dhinaca taariikhda sameynaya marka si guud doorashadu way wanaagsaneed way markaan bal dhinaca taariikhda fiirino iyo codadka xildhibaanada qaab ku soo baxeen waxyaabo badan oo taariikh ah jira leeyahay haday noqoto xisbigii talada wadanka hayay oo markii ugu horeysay awoodii si dadban looga wareegay iyo sidoo kale codadka ay xildhibaanada qaar ku soo baxeen marka la fiiriyaba taariikh waa ku sugan baa leeyahay dhinaca Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee taariikh noocaas ka dhacaan bal arrimaha maxaad looga tilmaami kartaa horta doorashada taariikh badan bay yeelanaysaa ilaa 2-3 taariikhood oo mid walba maaragtay dhacdooyinka la maaragtay la soo qaadan kara ah yeelanaysaa ma horta markii ugu horeysay ee xisbigii talada hayay
uu lumiyo awoodii golaha baarlamaanka oo doorashadii 2005 xisbiga xaakimkii udub waa uu lumiyay oo sida ay hadda tahay oo kala un bay ahay wax farqiga oo u dhaxeeyay 2005 iyo 2021 marka la fiiriyo qaabkii golaha baarlamaanka doorashadiisu ay u dhacday ma ay jirto xilliga xisbiga xaakimka udub ba ahaa wuxuu helay 30 cod kulmiye oo mucaarad ahaa iyo ucid oo mucaarad ahaa kulmiye wuxuu helay 31 cod ucidna waxay heshay 21 cod intay maanta heshay ah waa inta hadda la kala helay sidaan baa loo kala helay waagaana waa la qaybsaday Soomaaliland fahmay marka muhiimadii baa waxay noqonaysaa sida hadda ay kuwana isbahaysi u sameysteen udub iyo waxaan jeedaa wadani iyo ucid ay u sameysteen iyo kulmiye iyo ucidna u sameysteen xilliga iyada ah Cabdiraxmaan Cira looga oo ucid ka socday yaa wuxuu noqday gudoomiyihii labadii gudoomiye ku xigeenna waxa qaatay Iraan ma ucid buu ahaan jiray ha intuna ka soo dalacin oo uu san xagga soo aadin marka laakiin muhiimadda waxay tahay marka aad fiiriso dhinaca waxyaabaha taariikh ahaan ku gadaaman ama maaragtay hadda halhayska noqonaya codadka qaar ka mid ah xildhibaanada ama maaragtay ay ku soo baxeen oo kale labada golaba marka la fiiriyo codad aan horey taariikhda uga dhici jirin yaa maaragtay hadda ayaa lagu kala guuleystay oo ay xubno ku soo baxeen taasi oo muujinaysa dareenka shacabka iyo aragtida ay qabaan iyo in codkooda iyagu cidii ay rabaan ay wax kaga dhigi karaan cidii ay rabaan ay maaragtay meesha kaga saari karaan taasa muhiim ah way yaa kamid marka xildhibaanada la tilmaamo xildhibaanada muhiimadda marka la fiiriyo xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun ha 2022 oo cod 23 ha adu way meelayowga yaani xildhibaan gaaray horay Soomaaliland rikoorka isaga u xidhan yahay xildhibaan golaha wakiilada oo gaaray ha codkaas isaga u xidhan yahay waxay marka ka marxaati kacaysaa oo ay banaanka soo dhigaysaa yaani shacabku sida ay uga gudbeen qabyaaladda iyo maxaan ku ilaahay wax badan oo Soomaalida awal hore caqabado ku ahaan jiray yaani in meesha laga saaray oo dadka Soomaalidu ay muujin karaan aragti ka madax banaan qabyaalad oo qofka ay dooranayaan ay ku dooran karaan aragtida uu aaminsan yahay iyo shakhsiyadiisa iyo wax qabadka iyo ballan qaadyada uu sameeynayo taasi oo barasho wanaagsan u noqonaysa hadii uu ka soo baxana mar labaad ay ugu celinayaan hadii uu ku guul dareystana tijaabo wanaagsan ay leeyihiin oo meesha kaga saarayaan mid waa midkaas oo waa Batuun ka labaad ama xildhibaanka kale ee isaguna maaragtay isaguna taariikhda xidhay waa Axmed Moogal Liibaan Cabdikariin Axmed Moogal Liibaan waan salaamaya isaga iyo dhamaan asxaabta iyo qoyskaba iyo maxaan qoys bulshada Soomaaliyeed Allah naxariisto Axmed Moogal Liibaan baa dhalay oo maaragtay kamid ah hadii ummadda Soomaaliyeed maaragtay hal doorkeeda kamid aha marka markiisna waa golaha deegaanka waa maayarka magaalada Hargeysa ee maxaan ku ilaahdaayo sida sababtoo ah shacabka si tilmaamay shacabku ayaga muujiyay oo fariinna u diray golaha deegaanka gobolka Maroodi Jeex ayaa fariinta diray 26 oo cod waa taariikh isna u sar go'an sidaas oo ay tahay marka hadana dareenka shacabka waa in golaha wakiilada golaha maartay deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyaguna ay ka jawaabaan oo ay maartay geeyaan meesha ay shacabku igmadeen iska dooranaya maayar golaha deegaanka iska soo dhex dooranaya marka wakaasa labada xubnood yaa ugu maaragtay labaduba waxa la yiraahdo wadani bay ka tirsan labaduba waa xisbiga wadani oo mucaarad labaduba waa xisbiga wadani marka de xisbiga wadani waxa weeyaan wuxuu muujiyay xogaa maaragtay firfircooni iyo in uu yahay mustaqbalka hoggaanka Soomaaliland jaamcu labadii xisbiga mucaaradka waa isbahaysteen ucid iyo xisbiga wadani oo hal dheeriga leh golihii wakiilada iyo ucid oo 22 cod isna helay way isbahaysteen oo tiro badan bay isla heleen xogaha qaar waxay leeyihiin isbahaysigan wuxuu salka ku hayaa in dhawaan waxa loo tartami doonaa xubinkii gudoonkii golaha wakiilada laba nin oo dhinaca sool ka soo wada jeeda ayaa ku tartamayo midna wadani ka socdo midna uu ka socdo wasiirkii hore arrimaha dibadda uu yahay oo ka socdo xisbiga kulmiye in kan wadani la soo saaro oo labadan xisbi soo saaraan ku xigeenkiisana Faysal Cali Waraabi u cideyso ay qaataan sidaas golihii wakiilada hoggaankiisii kulmiye banaanka looga mariyo corporationka waxa leeyahay sidaas uu ku socdaa dama waa iska caadi waa iska caadi horta kulmiye isaga iyo xukuumaddiisu hasla go'doomaan kuwana maxaan ku baarlamaankooda iyo golaha deegaanka waxay isku bahaysanayaan muhiimaddu waxay tahay in ay soo dhisaan golayaasha deegaanka hoggaanka inay u qabtaan
golaha wakiiladana ay hogaanka u qabtaan taasayna tegaysaa xukuumadduna waxa weeyaan wax badan oo ay heli jirtay oo maxaan ku idhaahdaa to awal hore u fududaa yaa maaragtay culays kala kulmaysa la xisaabtan bay wajihi doontaa dhab ah iyo nidaam dawliya oo shaqeeya oo maxaan ku idhaahdaa to systemka dawladdu sidii u kala sareeyay in la kala saaro hay'adihii dawladda baarlamaankii iyo maxkamadihii ama maxaan ku idhaahdaa judiciarygii iyo maxaan ku idhaahdaa to qoladii fulinta awal hore waa isku yar qasnaayeen moogtahay wuxuu dhan ba hal xisbi bay ahaayeen halkii xisbi marka meesha hadda waa ka baxaya waxa uu la maaragtay go'doomaya xukuumaddiisa iyo maaragtay wax allaali iyo wixii hawl ah ee baarlamaanka ku yimaadana sifa sharci u soo maraya baarlamaankuna sifa sharci ula xisaabtamayaan hay'adda fulinta iyo hay'adda garsoorka marka nidaamkii iyo hay'adihii dawladda ee awal hore isku mid ka ahaa yaa kala madax banaanaanaya oo hay'ad waliba shaqadeeda ay qabsanaysaa hay-ad waliba ay shaqadeeda qabsanaysaa awal hore baarlamaanku wuxuu ahaa mid ku xidhan madaxtooyada laakiin hadda baarlamaanku wuxuu noqonayaa baarlamaan muujiyo awoodiisa baarlamaannimo oo mooshinada uu keenayo iyo qaraarada uu soo saarayo iyo go'aamada uu qaadanayo iyo shuruucda uu dejinayo oo dhan ay yihiin mid isaga ka imaanaya iyo mid xukuumaddu si sharciya ay u soo diyaarisay meesha nidaam dawli un baa la dhisayaa mooyaane oo la habaynayaa mooyaane mucaarad iyo muxaafad maxaan ku idhaahdaa to collaytamayaahi ma jiraan xukuumaddu maaragtay hindisa sharciyeedyada ay soo diyaariso awal hore waxay iska ahaayeen kuwa maaragtay to aan maaragtay inta badan sifooyinka loo baahnaa ee sharciyeed aan la marin jirin bay ahaayeenoo si fudud baa golaha loogu soo gudbin jiray iyadoo aan laga baaraandegin kadibna dee kulmiya isaga codka awoodda maaragtay lahaa ama aqlabiyadda lahaa marka muhiimadda hadda waxay tahay in hay'adihii dawladdu ay kala madax banaanaanayaan oo aanay isku raran ahaanaynin sidii awal hore ay isku raranta u ahaayeen axmed mooge haddii uu maayarka hargeysa noqdo gudoomiyihii golaha wakiiladana uu noqdo wadani isna noqdo wadani labadaa goobood oo aada muhiim hadday la wareegaan kulmiye waddanku waa wada muhiim somaliland waa wada muhiim meel aan muhiim ahayn laakiin macnaha waxaan ka wadaa xisbi mucaarada hadduu laba jago oo sidaa u miisaan culus uu la wareego xisbigii talada hayay soo noqonaya dhammaan maayarada waxaa la wareegaya mucaaradka sababtoo aqlabiyad bay ku socdaan hal hargeysa keliya maaha maayarada oo dhan waxaa la wareegaya mucaaradka marka waa dee qoladana xukuumadda ay ku koobnaanayaan qoladana maaragtay hay-adihii kale ee sharciha ee dastuuriga ahaa sharci dejinta maya qoladii sharci dejinta golayaashii labada gole deegaan iyo dawladaha hoose iyagaa maamulaya waana maxaan ku idhaahdaa waxtar weyn bay somaliland u yeelanaysaa runtii hay-adaha markay isa saaran yihiin dawladda marka awood qaybsan bay noqonaysaa sooma sharci hadda waxaa keenay codka dadweynaha keenay muhiimadda waxay tahay codka dadweynaha keenay yacni waa saadaal muujinaysa doorashada soo socota iyo waxay iyo signal ka sii bixinaysaa marka kulmiya iyagaa laga rabaa mar hadday lumiyeen awooddii golayaasha labada gole golihii deegaanka iyo golihii baarlamaanka hadday lumiyeen waxa weeyaan iyagaa laga rabaa inay dhulka iska soo qaadaan oo la tartamaan xisbiyadan maxay kula tartamayaan marka xisbiyadan kulama tartamayaan booliiska iyo cagajugleyn iyo maxaan ku idhahdaa qabowga iyo haahe kulama tartamayaane waxqabad bay kula tartamayaan waxqabad bay kula tartami taasay ku hanan karaan codka shacabka marka hadday taa lumiyaanna dee waa caadi wey waa iyagoo taagtaagan baa barqo yaa laga qaadan xisbiga kulmiyana uu kala tegi arrintaa waan ka gudbaya hal su-aal baa igu dhiman halkaa su-aal waxaa weeye wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ee muqdisho fadhiya oo u dabaaldegaya la arkaya natiijada maaragtay doorashada somaliland ka dhacday ka warran arrinta waa sax waa wax loo dabaaldego weeyaan doorashada somaliland ka dhacday waa sax weeyaan meel walba in looga dabaaldego sababtoo ah doorasho daaha furan maxaan ku idhaha hufan oo aan caadifad iyo qabyaalad iyo qolyo is-eryanayay iyo maxaan ku idhahdaa wax noocaas ayna ka jirin saddex xisbi ay si hufan ugu tartameen kuwada qanacsan yihiin beeshii caalamka iyo goobjoogayaashii iyaga naftirkooda ay hambaliyeeyeen waa wax wanaagsan weeyaan waa wax loo dabaaldego weeyaan marka waxaan filayaa khadiijo diiriya ujeedaa khadiijo diiriya wiilka eedada u tahay iyo u dabaaldegaysay barkhad jaamac batuun wakaas ilaa iyo hadda dabaaldeg bay ku jirtaa iyadaa sheegtay oka wiilkan eedada u dabaaldegaya tii marka annaguna waa ugu hambaliyeynaynaa soomaali oo dhan baa mudan inay u dabaaldegto runtii marka xaqiiqda laga hadlayo doorashadu galdaloolo way yeelan kartaa wax walba yeelan kartaa laakiin 5% galdaloolooyinka soo baxaya waa un gobolka Sanaag bari marka xaqiiqda laga hadlo inta kale marka la fiiriyo waxa weeyaan doorashadu si hufan bay u dhacday
codad taariikhda galay baa ka soo baxay beela Soomaaliyeed oo la haybsoocayay oo la takoorayay oo meesha maaragtay ku ahaa dad maaragtay aan codkoodu muuqanin yaa maanta banaanka yaalla oo hogaamiyaha ugu codka badan waliba hadii loo baahdana ay suuragal tahay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland anu waxaan dhihi lahaa laga dhigo Barkad Jaamac Batuun gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland hal la jabiyo sideedaba grantan iyo maaragtay waxyaalahan maaragtay xaafadaha u xiran xaafada beesha dhaxan waxaad moodaa waxeedu iyada dubatay iyadana daangeysatay doorashada iyada qabsatay iyadana ku soo baxday camal marka waxa uu yahay muhiimadu waxay tahay in wax badan doorashadan laga bartay oo ay tahayna in looga daydo aad ma santahay Jaamac ayuu su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya ama mawduuca ugu dambeeyaan aadayna gobolka Sanaag gaar ahaan Sanaag bari beela halkaasi dega oo Soomaaliland sad ku lahaa sadkoodii total waa maqan yahay sayoo ka jira ma beelaha hore baa looga ceyriyay Soomaaliland ya hore looga ceyriyay iyaga laga ceyriyay mise iyaga iska ceyriyay ma iyaga laga ceyriyay taliyaha ciidanka Soomaaliland muxuu ahaa nuux taani meel ilaha koox ciidanaha marba ergaabi iyo weerahan waa la wada joogaa moogtay wixii ka bilowday dhulkaas Soomaaliland iyo Puntland ay wada joogaan moogtay soo joogan baa xal ka soo jeedsano qaar baa tagay laydin ma baahnay bax buu yiri agaba hore waxaad nagu dhex jirteen wax kale soo hagar sidii bay ku baxeen marka beesha loogama baahnaba Soomaaliland loogama baahna iyaguna waxaad muddo hadda inaysan u baahnayn oo maaragtay cudur kuma qabaan oo maxaan ku idhahdaa maxaan looga tagay laakiin waxa muhiim ah uun xildhibaanada yaa matalayay ka dhigan tahay Soomaaliland hadii aan maaragtay to yaani ay u aqoonsan tahay deegaamadan inay yihiin Soomaaliland waxa la rabaa golaha wakiilada Soomaaliland inay dib isugu noqdaan yaa matalaya Sanaag bari in la isiira doorashada way dhacday wixii annaga dibanay annagana daangeysanay lama baahna moogtahay yaa matalaya marka golihii wakiiladu way idil yihiin Sanaag barina doorashadii kama qayb gelin golihii baarlamaankuna waa dhan yahay 82 xubnood oo wax ka maqan ma jiraan Sanaag barina hal qof ma sool iyadaaba wax kala ah sool naftarkeeda intii la rabay in baa soo baxay intii aan loo baahnayn iska baxay la iyagana oo kaasa intii la rabay in baa soo baxay intii kale iska baxay la iyagana marka meesha xisaab baa ku maqan marka Soomaaliland iyada waxa laga rabaa waxan inay xal u keento Soomaaliland waxay rabtaa aqoonsi ma adeer fiiri meesha xukuumadda iyo dawladda nidaamka dawliga ee systemka dhisan kama maarmo halka ka Soomaaliland aqoonsi bay rabtaa Soomaaliland kama maaranto maxaan ku idhaahdaa taaka inta la eg oo kamid dhulka ama territory Soomaaliland maartay xuduud ahaan dhulkii hore uga tirsanaan jiray isticmaalka Ingiriisku uu gumaysanayay Soomaaliland uu u bixiyay marka اعترافك أي رياضين سنة هذه هل قفة والدجامات أو عبشم موجينيو وحويان مسؤول الجليسو سلا دراد بلشدن إذا حال ربع نظام كسيستم كدولي مسؤولية دو الشيغانية إن وقنعيو إنه الله حساب تمسد كودينا إن لوسو عليو لكن صورة قل من قنايسو قبل دن أو السنة قليلة هذا لح دقمو كوبيه أفر دقمو كامدة عبد متلي ساهم مشرتو كون وسير ربنا ماشان ربنا روب ميوداي بدلان با ما حان كلها شقاده qabsanaysa marka tani waa darbaaxa ku dhacday Soomaaliland iyada marka waxa la rabaa Soomaaliland inay xigmadii lagu xalin lahaa ay la timaado yaani Sanaag bari bulshada ku dhaqan wax badan oo hadda uga daadanaya ama uga maqnaanaya ma jiraan intay go'aansatay tiri anaga Puntland baan nahay Soomaaliland ma nihin sida hadda iyagu yireen weligeed way lahayd wax hadda cusub ma aha sool sidoo kale way lahayd nin qori haysto kula anigu maamul kala waxyaalaha yaani sool gobolka sool oo kale hal xildhibaan baa ka soo baxay waxaan gobolka waxaan jeedaa degmada Buuhood la yiraahdo hal xildhibaan baa ka soo baxay halka xildhibaan ee degmada Buuhood ka soo baxay degmada Caynabana 7 xildhibaan baa ka soo baxday degmada Caynaba oo daris la ah 7 xildhibaan baa ka soo baxday Buuhoodna hal xildhibaan baa ka soo baxay baa leeyahay oo meel lagu doortay aan la garanayn marka waa galdalooyinka tama waxay muujinaysaa waxyaabaha maarad dadkan inaan la wacyi gelinin oo dadkan aan loo diyaarinin doorashada oo xukuumaddu ayna xil iska saarin waxaan hoggaanka fiiri dalku hoggaan buu leeyahay hoggaanka dawladda Soomaaliland ayaan mas'uuliyad iska saarin oo dadkan aan ku qancinin
oo aan diyaarinin maxaan ku idhaahdaa to bulsho codkii maaragtay wax samayso oo dadkan in la soo jiitaa la rabaa moogtahay laakiin in la sii caydiyo tawa waxa weeye waa hadalkii nuux taani weeye looma baahnadii baa meesha maartay yaa cadaanaysa وهذا هذه الدول مع سنتهاي جمع قلة يوكاسي هذا وضيال انتاس يان كسو كبقبين قضب كان انتا انو مركرة كل مدونو ونور يا جمع قلة ضيدين لسيدا سيو نبت